dhawaan ayaa ahayd markii ay soo gabagaboobeen heshiis u dhaxeeyay maamulada Soomaaliland iyo Khaatumo kaasoo ka qabsoomay degmada Caynaba ee gobolka Sool waxaana laga soo saaray qodobo kala duwan waxa heshiiskaas soo dhaweeyay dadweynaha odayaasha iyo waxgaradka degmada Kalabeer ee gobolka Sool waxa ay sheegeen heshiiskaasi ay mid ay dan ugu jirto bulshada ku dhaqan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa kuwan odayaasha iyo waxgaradka arrimahaas ka hadlaya afka degmada Kalabeer dadweynaha ku dhaqan waxaan taageersanahay wada hadallada Khaatumo iyo Soomaaliland Professor Ali Khaliif oo hogaamiyaha ka yahay anigu odayaasha Kalabeer waxaanu taageersanahay oo kaliya laab ku taageersanahay wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland dhexmaray baan taageerinay joogna degmada Kalabeer oo bulsho weyntii isugu soo baxday iyadoo muujinaysa shucuurkeeda wada hadalkii Khaatumo iyo Soomaaliland ee ka dhacay magaalada Caynaba go'aamadii la kala saxiixday waanu taageersanahay anagoo ku daba fadhina madaxweynaha iyaga Ali Khaliif Galayn waxaan soo dhaweynaa hadalka Caynaba ka dhacay ee madaxweynaha Professor Ali Khaliif Galayn iyo Maxamed Siilaanyo ay ku heshiiyeen dowladda Soomaaliland dowladda Khaatumo waxaan leeyahay hadalka halaga dhameeyo Soomaaliland dadtiin idinka dadka furaha aad maxay Ali Khaliif ku heshiiyeen kaasoo dalbaanta aad ku helisaan haddii kale dalbaanta heli maysaan haddii qaybihiisa ku shaqeyn bay ka maqaanaysaa waxaanu taageersanahay guddoolkii ka dhacay Caynaba Ali Khaliif hogaaminayay wakiilka dhulbahante waanu taageersanahay halkan waa degmada Kalabeer waxaanu shucuurtayada ku muujinaynaa iyo taageeradayada wada hadalkii Caynaba ee ay hogaaminayeen labada hogaamiye Ali Khaliif maamulka Khaatumo iyo Soomaaliland heshiiska ay kala saxiixdeen aad baan u soo dhaweynaa u taageeraynaa cudud iyo aqliba waanu taageersanahay waxaanu soo dhaweynaynaa oo aanu garab taaganahay oo aanu taageeraynaa wada hadalkii ka dhacay degmada Caynaba hadalka oo dhex maray ama u socda dawladda Khaatumo oo hogaaminayo Ali Khaliif Galayn iyo dawladda Soomaaliland ee hogaaminayo Siilaanyo Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood